ujeedada maanta halkan aan isugu nimi haddii aan wax ka iftiimino waxa weeye shirka la gacan maroorsaday ee la kufsaday ee qabanqaabadiisii iyo musharaxiisii iyo arooskiisii iyo wixiiba uu isagu isku darsaday maxamuud cabdi jaamac xuuto saaxiibkay nin walowba muxuu ahaa kaga quusan ninkaasoo inaan xil laga dhargeyn adduunna laga dhargeyn maalin walbana aad cusub tahay halkaaba ka qaado waxa weeye guddidii qabanqaabada ee الله ونحرسته قربك محمد رشيد بانو هين دلاعي هالكي كبلامه uu sameeyay wasiirkii warfaafinta xukuumadii Axmed Siilaanye dhawaan wadanka ka tagtay Cabdullaahi Maxamed Daahir Cakuusi uu sameeyay xoog uu ku saaray maraga loo ahaa uu sameeyay guddida qabanqaabada isagu uu sameeyay Maxamed Aadan Weerax Sahra Cabdi Wahaab iyo Barkad Maxamed Qaariye oo aan leeyahay waxa la isticmaalaa kaliya 3 cishe la dooranayo ninkaasi tii baa maantana xuuta soo qaatay waxaan nasiib daraa horta marka horeysa waxaan hambalyo u dirayaa raggii shalay ka hadlay gobolada Soomaaliland gobolka Togdheer Saaxil Awdal Hargeysa intuba sheegay sida ay uga xun yihiin shirkaasi la gacan maroorsaday ee lagu qabanayo Hotel Ambassador uu qabsanay Soomaalidu waxa oran jirtay arooskeed mashxaradada way ula ekoonay waxa adiyada ceebahan jirtay inana ta aroosada aqalkeeda ka shaqeysato waayo iyadu waa boqorad cid baa looga shaqeeyo cid baa u shaqeysa xuuto waxa uu salaxanayaa shirkaasi maanta uu sameeysanaya wax weey nin arooskiisii sharaxanaya weey cid ka qayb gasana waa arooskii xuuto cid ka qayb gashay dilaaci halkaasi ka bilaabmay kal hore 3 sano horteed 2014 markii xoog loogu saaray xuuto waxa xusud mudan 3 sanadood ee ugu dambeeyay miisaaniyadda dawladda qaranka Soomaaliland $50,000 ba ugu jiray xuuto oo saxaafadda Soomaaliland soo ugu jiray bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka ugu horeysa anagu ma diidanin inuu gudoomiye xuuto uu yahay gudoomiyaha ururka mana diidanin ururka soo jooyay ururka suxbiyiinta balse waxaanu ka soo horjeednaa bareerka cad ee gudoomiye xuuto ku doonay inuu mar labaad xilka gacantiisa ku marooriyo taasna waxa markaatay kaaga intan oo saxafiyiin oo maanta halkaas ugu yimi oo dhamaantoodba ka hadlaya qaabka uu xuuto wax u wado dabcan xuuto waxa la sheegay inaanu ku jirin guddida qabanqaabada balse waxa uu intaas ku daray in goolihii dhexe ee markii hore ay jiray barqa qaadiye kamid ahaayeen inay dib u soo noqonayaan mana ogolaan doono fariimaha ka fadhiyo wareen saxaafadda Soomaaliya shirkadii ka dhacay master xuuto qabanqaabada waa shirkad mulkiilayaasha ma shirkad saxaafadda Soomaaliya shirkadii imika inagu wadnaa waa shirkad saxaafadda Soomaaliland iyagoo aqoonta walaha saxaafadda iyagoo ku shaqeysanaya ama iskiiska walaha saxaafadda xuuto waxaan leeyahay 3 sano qaran dii ku timaado maanta la xashadeen afursato inuu maanta hadlo olaan qabanqaabiyaan ay mehen xalay bacdeen isagoo qabanqaabiyahay hal guddiga qabanqaabada ka booday isagoo ka haray guddiga hore shirka hore saxaafadda Soomaaliland anoo xagga u xiltay oo ka mid ah laakiin waqtiga dambe aan arkay waxaan khilaafka soo afmeer gacan dhiiga aan ku saarnay maantaas naf baa ku qulweyday dhaawac baa ku yimid ceeb ka timid maanta tii mid la mid ah xuuto wada runtii waxaan leenahay maanta gacan dhig leh iskeentay runtii halka waxa ka yimaada xuuto ay badal cid ka tahay saxaafadda Soomaaliland ma matalaan cidna sharcina ma waa xaraan weeyaan waxaan jecelahay saxaafadda Soomaaliland ugu baaqo shirka bartooda qabto deegaanka galsiyo in ay shir caalamiya oo madax bannaan guddi la soo xulay oo waraaqada u qoran ma aha waa guddi ka soo qayb galayna kuwa gobolka jooga iyo kuwa dalka jooga caafimaadka hay'adaha caalamiga ah ambaba iyo saxaafadda ka taageero xalan halka gacan geystaan inuu ka ku bixisaan ama qaasha ama awoodaha waxay ka mid tahay in saxaafadda Soomaaliland bulshada waxay kib abuurtay khilaaf saxaafadda Soomaaliland ka abuurtay xisbiyada siyaasadda iyo xukuumadda xalan cid ala ka qayb gasha in arnayda barti ku ama halka ka hadasha waxay la mid tahay saxaafadda Soomaaliland gal gasha waxa xusuunan saxaafiga marka waxa qora ama xabaga waxa la qoro cid la xabo wariyaha wakiilaha ma agaasimaha ma rag xidhaan xabsi oo qodaan ama dacwaysan waraga ma ta ka fadhiya kuwiga dad markay kala xataan idinka